banaan baxaynaa darrada oo nagu soo duulay habeen laakiin dowladda nagu soo duulayso ma doonayno oo saraakiisha lagu ceysanayo ma doonayno saadaq ma taageersan saadaqaan taageersanna saadaq maxaa dhahday ana waxaa يا mana u baahna maanta haba yaraatay wax dib uga ama khalkhalin dowladduna ilaa hormuudka in la ilaaliyo horumarka iyo nabadda magaaladan iyo guud ahaan waddanka soomaaliyeed marka bulshadaas soomaaliyeed ee meeshaa degan waa bulsho nabdoon yaan dhibaato la dhex gelinin yaan dushooda wax lagu abaabulin wax aan dowladda u qorshaysnaynayaan ma habboona inay bulshadoodii iyo dadkoodii iyo shacabkoodii dushooda in ay dadka ku guubaabiyaan oo ay dagaal ku abaabulaan wax sharafla maaha wax dowladdu raacsan taana maaha qodobka kale wuxuu yahay dad mas-uuliyiin ah ama hadda ah ama xildhibaana ah ama mas-uuliyiin hore ah ama madaxa ah ayaa waxaad moodaa inay kala furfurka ciidanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan oo ay abaabulaan maleeshiyaad oo ay ka furfurayaan ciidankii qaranka soomaaliyeed waxaan taasina cid ay dan u tahay male horaa loogu soo hingoobay horaa loogu soo gutay ciidanka qaranka soomaaliyeed ummadda soomaalida ka dhexeeya siyaasaddana waa laga heshiin doonaa siyaasadda waa laga heshiin doonaa istijiidka siyaasadda waa dhammaan doonaa kala furfurka ciidanka qaranka soomaaliyeed oo dhibaato badan loo soo maray iyo dhiig badan loo soo maray kala furfurkiisa waxaan leenahay laga waantoobo ciidan hayeysan ku dhiiranin ayaguna ciidanka qarankuna diyaar uma aha in maanta la kala furfuro waxay u taagan yihiin inay nabadayaan dadkooda iyo dalkooda oo ay cadowga ka hortagaan ayagaa runtii faa'iidaa oo ay doonayso in ay dhamaadaan aad iyo aad umahadsantay wasalaamu calaykum waraxmatullahi شكرا